barnaamijka falanqaynta waa barnaamij ku xiiso gelin doona waana barnaamij maalinle ah waxaana kala socon doontaa channelkeena Toosnow Media. bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan meel walba joogtaan. waxaan idin leeyahay habeenku ha idin wacnaado. halkan waa channelka Toosnow Media, aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay iyo falanqayntii wararka. kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta. barnaamijkan waxaad kaga bogan doontaan arrin badan oo idinka qarsanaa. shaqaalaha guriga Trump uu ku nool yahay qaarkood oo coronavirus-ka laga helay. midowga Yurub oo ku hanjabay in ay joojinayaan in talaalka corona dibadda loo dhoofiyo. qodobka kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Turkiga oo ka baxay heshiis caalami ah ku saabsan haweenka. qodobada ayaynu caawa faaqidi doonaa insha Allah. kusoo dhawaada. ayna ku bilaabnay dhanka iyo Turkiga ayaa isaga baxay heshiis caalami ah oo ka shaqeynaya ilaalinta xuquuqda dumarka, inkastoo talaabadaasi ay cambaareeyeen ururada u dooda xuquuqul insaanka. walaaca xuquuqul insaanka ee Yurub ayaa dhaleeceeyay talaabada uu Turkigu kaga baxay heshiiska. Marija Porik oo xogayaha guud ee golahan ah ayaa ku tilmaamtay go'aanka Turkiga mid dhibaato keenaya isla markaana aan la aqbali karin. heshiiska Istanbul ayaa waxaa ku xusan xeerar ka shaqeynaya xuquuqda dumarka, gaar ahaan in wax tacaddi ah aan loo geysan karin iyo kufsiba. muxaafidiinta Turkiga ayaa ku dooday in heshiiska uu ka soo horjeedo qiyamka qoyska, halka wasiir ka tirsan dowladda Turkiga uu ku doodayo in dastuurka dalkaasi uu si waafi ah uga falcelinayo xuquuqda dumarka. balse mucaaradka ayaa sheegay in ka bixidda heshiiska uu yahay mid ka dhan ah nolosha dumarka. dumarka Turkiga ayaa in muddo ah banaanbax ay kaga soo horjeedaan arrintan ka dhigay wadooyinka dalkaasi tan iyo markii dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Erdogan ay soo jeedisay in heshiiska laga baxo. sidoo kale midowga Yurub oo ku hanjabay inay joojinayaan talaalka coronavirus ee loo qaaday ee dibadaha. gudoomiyaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku celceliyay hanjabaadii ahayd inay joojin doonaan in dibadda loo dhoofiyo talaalka AstraZeneca ee lagu sameeyay dalalka midowga Yurub. waraysi ay siisay wargeyska Jarmal ka soo baxa ayay ku sheegeen in fariintan ay u direyso shirkadaasi AstraZeneca ee talaalka sameysa ay tahay in ay marka hore ka soo baxdo heshiiska ay la gashay dalalka midowga inta aanay talaalada u iibgeynin dalalka kale ee dibadda. Ursula waxay sheegtay inay shirkadaasi dalalka midowga soo gaadhsiisay oo kaliya 3 meelood meel ka mid ah 90 milyan ee irbadood ay shirkadu kula heshiisay dalalkaasi inay 4 bilood ee ugu horeeya sanadkan u sameyn doonto. warshada soo saarta talaalka AstraZeneca oo ku taala dalka Belgium ayaa soo saareen xaddigii la filayay. mamnuucidda dhoofinta talaalkuna waxay ku xiran tahay oo kaliya go'aan dal qura oo midowga ka tirsan gaadho. waxaynu isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. ugu dambeyntiina shaqaalaha guriga Trump ku nool yahay oo qaarkood corona laga helay. qasriga uu ka degan yahay Donald Trump ee la yiraahdo Mar-a-Lago ayaa qayb ka mid ah la xidhay kadib markii qaar ka mid ah shaqaalihiisii laga helay fayruska corona. sidaana waxaa ku warantay warbaahinta Mareykanka. qasrigaasi oo ku yaala gobolka Florida ayaa goobta uu sida rasmiga ah u degan yahay madaxweynihii hore tan iyo markii uu xilka ka degay bishii January. warbixin xafiiska Trump ka soo baxday ayaa lagu sheegay in qaybta cuntada la xiray, laakiin laguma faahfaahin tirada dadka fayraska laga helay. Trump asagu waxa uu fayraska ku dhacay bishii October ee kal hore, wuxuuna talaal ka qaatay bishii January ee sanadkan. markii cudurka laga helay waxaa la dhigay isbitaal uu ku jiray dhowr maalmood oo lagaga daweynayay cudurka. aafadiisa Melania iyo wiilkooda Baron ayaa sidoo kale iyaguna uu ku dhacay fayraska intii weli qoysku ku jireen aqalka cad. waxaa sidoo kale cudurka laga helay saraakiil dhowr ah oo madaxweynaha u dhawaa. nun iyo gabanaanudkii intaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii falanqaynta. intaynu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.